dhawaada ardayda qiimaha badan leh waxaan sii wadi doonaa course-keennii pharmacology-ga maanta waxaan ka hadlanaa markaa lecture-keena kaga hadlanaa dawooyinka la dhaha antifungal drugska aynu ka hadli doonaa halkan picture-kan idinka muuqda sawirkani waxa weeyaan waa cell membrane-ka markaa leeyahay fungus-ku leeyahay muxuu kaga duwan yahay kii bacteria-da aan soo dhiganay wuxuu kaga duwan yahay kan wuxuu leeyahay markaa gidaarka adag oo ka samaysan markaa chitin marka waa polysaccharides ayuu ka samaysan yahay halka kii bacteria aan soo dhigan uu ka samaysnaa markaa bacterioglycan layer uu ka samaysnaa kan fungus wuxuu leeyahay markaa gidaarka adag oo markaa ka samaysan chitin oo markaa polysaccharide markaa structure kan bay dawooyinkana u shaqayn doonaan oo arki doonaa kuwa azoliskan halkan bay inhibit karayn doonaan dawo kastoo aynu ka hadli doonaa markaa mechanismkeedana waan raacin doonaa sidaasaynu markaa uu fahmi doonaa aanu overview guud ka qaadano muxuu kaga duwan tahay markaa bacteriadu funguska maxay kaga duwan tahay unlike bacteria fungusku wuxuu kaga duwan yahay bacteriada waxa weeyaan markaa waa eukaryotic waa multicellular waa eukaryotic halka bacteriadu ka ahayd markaa hal sal ay ahayd asagu waa multicellular weeye wuxuuna ka samaysan with rigid cell wall oo adag buu leeyahay kaasoo markaa ka samaysan chitin halka ka bacteriadu uu ka samaysnaa maxay peptidoglycan layer uu ka samaysnaa fungal cell membrane wuxuu ka samaysan yahay markaa ergosterol ayuu ka samaysan yahay halka markaa ka bacteriada iyo ka biniaadamkuna uu leeyahay markaa cholesterol uu ka samaysan yahay fungal infectionsku generally inta badan waxay resistant la yihiin antibioticska taa cagsigeeda bacteriaduna markaa inta badan waxay resistant la tahay antifungal drugska ayay la tahay funguska infectionku keena waxaa loo aqaanaa markaa mycosis ayaa loo aqaanaa inta badan oftan waxa weeyaan waa chronic ayuu noqdaa cambaaraha qayb ka mida markaa waqti dheer bay dadka hayaan waxaana inta badan uu ku dhacaa markaa superficialka amba skinku ku badan yahay ayuu inta badan markaa fungusku ku dhacaa mararka qaarkood wuu u gudbi karaa qofku hoos buu soo dhaadhici karaa oo wuxuu noqon karaa markaa systemic ayuu noqon karaa groupka u horeeya aynu ka hadlanay markaa antifungal drugska waxaa ka mid a markaa laba group baynu kaga hadlanay oonaa loo soo gaabiyo azolis antifungal drugskaas oo maxaa ka mid ah waa labadan group oo mid la yidhaahdo imidazolis oo inta badan topicale amba kuwa dhiiqaabay u badan yihiin oo la iska mariyo markaa maqaarka la mariyo iyo kuwa la yidhaahdo trisolis oo oral ku yimaadeen afka laga qaatay iyona av laga qaatay ku yimaadeen imidazolisku groupkaa hore inta badan wanigeeda kuli waa topicale dhiiqooyin bay u badan yihiin kuwaasoo lagu daweeyo cutaneous infectionska inta badan markaa maqaarka ku dhaca trisolisku ayagu inta badan waxaa lagu daweeya markaa systemically ayaa lagu daweeya for treatment lagu daweeyo prophylaxis amba lagaga hortaga markaa cutaneous infectionka amba markaa systemic infectionka uu keeno markaa fungal infectionka uu keeno groupka la yidhaha imidazoliska waxaa ka mid ah saddexdan dawaa ugu caansan clatramazole micanazole iyo ketoconazole dawooyinka la yidhaha clatramazole iyo micanazole waxaa lagu daweeyaa clinical useskooda waxyaabahan ku daweynana waxaa ka mid a vaginal candidiasiska waxaa jira xubinta dumarka ayuu ku dhacaa inta badan funguskaasi vaginal candidiasiska markaa cuncuniyo waxbuu keenayo waa lagu daweeyaa sidoo kale waxaa lagu daweeyaa tinea infectionka xambaaraha kala duwanna waa lagu daweeyaa sidoo kale waxyaabaha lagu daweeya waxaa ka mid a oropharyngeal candidiasiska oropharyngeal candidiasiska oo waxaana soomaalidu u taqaana cabeebka ayaa lagu daweeyaa in ilmihi yaraa markaa afka cadcadaan yeesho dhareer yeesho astaamahaasu yeeshaa markaa oropharyngeal candidiasisku marka qaarkood dad kale markaa h i v-ga markaa difaacooda hooseeyana waa lagu arkaa calaamadaha dabeetana dawooyinkan waa la siiyaa dawada la yidhaha ketoconazole iyadu waxay ku wanaagsantahay clinical useskeeda waxyaabaha aadka loogu isticmaalo waxaa kamid a markaa tinea qaybo kamid a cambaaraha amba tinea fiscalarka cambaar cadka ayaa aada loogu daweeya groupka labaad la yidhaha trisoliska waxaa kamid a isaga fluconazole oo aynu iyadana clinical useskeeda waxyaabaan u isticmaali karna waxaa kamid a markaa
Cryptococcus meningitis uu keeno fungusku iyo candidiasisku. Funguskan la yidhaha candidiasisku meelo kala duwan oo jirka ku dhaca, afku ku dhacaa, xubnaha taranku ku dhacaa, meelo badan buu ku dhacaa. Marka kuwaana formiskiisaasoo dhanna waa lagu daweeya. Dawada la yidhaha trichosolisna waxaa lagu daweeya iyadana dermaphotosiska, funguska ku dhaca cidyaha oo loo soo gaabo marka qaarkood la yidhaha onychomatosis ayaa lagu daweeya. sidoo kale wuxuu ku dhacaa oropharyngealka iyo ayuu ku dhacaa oo waa lagu daweeya. dawooyinkan aynu kasoo hadlanay seebay u shaqeynayaan, mechanism of actionka u shaqeynayaan dawooyinkan ayaynu ka hadli doonaa. waxay inhibit garayn doonaan irkastrolkii uu ka samaysnaa maxay waanay kusoo aragnay markaa halkii cell membrane aan kusoo hadlanay markaa fungal ayay markaa inhibit garaynayaan. marka la inhibit gareeyo waxaa dhacaya in markaa functionkii iyo structurekiisiba uu wax ka joojiyo. marka waxaa dhacaya inhibit inuu markaa fungal cell growthkiinu markaa inhibit garoobo ayaa dhacaas. marka dawooyinkan waa maxay? azoliska maxaa loo yaqaanaa? waa fungistatic, growthkii bay ka joojinayaan, dabeetana waa